lagu sameeyo dabeecad Soomaalida ama sabab abo macaan camera markay arkaan mataqaana they change attitude ko garan bas bedela adna waxa rabtay lagu dhaw oh my god hebla imaadi soo dhawow abo macaan I love you so much please sorry lagal oh waa ku jecelahay TikTok ka arka I love you so much ma rabtay waxa Soomaaliya la dhameesh ku misoo mugtay hadaa rabto waxyaalahaas amal mataqaana ajaanibkaaga la jooga si sad marka xafladaha ajaanibka laga soo casuumeeyo magacaaga meel lagu dhijiyaa ma aho soo hadaa rabtid waxyaalaha qaar attention inta lagu mataqaana abo macaan Soomaalida la joog ajaanibkaaga كلها وانا لبهدلي محاوم على سأل جوجو بهدلي محل جوجو سمي that's what I don't understand أنا مكتئب قف بقول حكوا ده قف كلا يبهدلي سيدا مسكحنا سيدا نفط هذا ويا رئيسنا يسا أو تكدي يسا إلله بهدلي بس أنا وحي بهدلي كلام تقانا قف أنا يجا في عن إجا العق بدن إجا قوم بدن إجا قرح بدن ده بقول له قف يبهدلي كرا محل جوجو بهدلي the same شرط يحرنا إذا the same درع على وضع حرنا wax oo ma aragta meesha oo lagu bahdila haba yaraatay ma yaalo hadii qof bahdilina ma taqaan ada is bahdishay because waxa weysay ma taqaan attention ka raadinaysa weysay ba waxay xafladda marka gashay ma taqaan dadka la isku dhex daraa waa la qoslaa waa la sheekeeyaa ma fahanti qabqabta iyo social media iyo followers ka ma taqaan Soomaalida they don't give a fuck Somali people marka dhex gashay hadii ku arkaan furan tahay hadii ku arkaan qof fiican tahay hadii ku arkaan wajigaaga in assalaamu calaykum ku qoran tahay wa calaykum asalaam ku qorantay markaas ku iimaanayna ku salaamayaan waysan ahayn meel ay istaajine waxaan ku dhablay iska dhigay waa lagu sii jiraa waa lagu soo jiraa waliba ogaana lagu la dagaal aan ku soconina lagu ridaa because that kan Soomaaliya la dhanfadi hadaa rabtid amaam taqaan waa loo qoslaa dadku waa loo sheekay hey assalaamu calaykum seetiidin fiicantiidin maxaa sameynaysiin okay noo ciyaaro dhaaska noo shida markaas magacaaga la qaada markaas waxa ku dhee dadku markay Allah meel istaago balay ma la iska dhigo because Soomaaliya waxa u daran taqaan qof aaminsan oo meel fadhiya